السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحبابي في الله، مع أحبابي في الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walaalahayga Soomaali weyn meel walba aad joogtaan, waxaan idin leeyahay jumcatukum mubaarak. ilaahay ha idin xafido, ilaahay ha idin sharfo. walaalahayga maanta horta waa maalin jimca, waxaan idin leeyahay jumco wanaagsan insha allah. kuwa oo duhur u tahay duhur wanaagsan, kuwa galab u tahay galab wanaagsan, kuwa habeen u tahayna habeen wanaagsan insha allah. waxaan rabay mowduuca maanta inaan ka hadlo. walaalahayga horta bini aadanka oo adduunkan ku nool wax kasta wuu arkaa, alxamdulilah. marka walaalahayga waxaan ka hadli rabay haddana waa digniin ama ii sheeg dhiirigelis. marka insha allahu tacaala walaalahayga, waad ogtihiin adduunka macnaha waa nala haystaa, run ahaantii waa nala haystaa, caqligeena maskaxdeyna dhan waa nala haystaa. marka insha allahu tacaala waxaa ka sii xun dhalinyarta ama caruurta hadda soo korayaan waqtigan aan ku jirno. aad saad u jeediin adduunka siduu u socdo, technologiga, xishoodka, maaragtay iimaanka oo laga tegay. marka insha allahu tacaala walaalahayga waxaan idin dhihi lahaa walaalahayga, kolley ha lagu dadaalo inaad iska dhigtaan dad aada u dhiiragelin. macnaha haddaan isdhiirigelino wax naga halaabayo ma jirto insha allahu tacaala. ha lagu dadaalo, waayo waxaan noqonay dad la abuse gareynayo, because abuseka lagu sheegayo maskaxiyan ma ahan ilaa qofka inaad oo by physically ma ahan. xataa waxaa jirto siyaasadda lagu sheegayo maxay tahay, adiga ama afka ka hadal ama ra'yi keen ama wax leh, maasha allah, wax aqliga leh yani lagu socodsii karo ummadda. marka insha allahu tacaala walaalahayga waxaan idin leeyahay, waana la oofsaday, hala iska ilaaliyo. waa u jeediin fasahaada socota adduunka, dumarkii, dhalinyartii, ilaahay haddii isku roon yahay, caruurta hadda soo korayso hataa dhibaatay ku jiraan. ha lagu dadaalo maskaxiyan insha allahu tacaala walaalahayga, waana iga tahay, waayo xishoodka haddii laga tago, wixii generationka ama ubadka hadda soo baxayaan inay role model u noqono, inay waxay arkaan, hadday xumaata arkaan xumaatadii raacayaan ama fasahaaday raacayaan, hadday kheyr tahay ama wanaagay raacayaan. marka aan noqono dadka insha allahu tacaala mar walba u taagan waxyaalaha kheyraadka insha allah. waa u jeediin hadeertaan cod baa laga qaadayaa, ama codka hooyada oo mar hore dhimatay ama aabbahaaga xay aa lagu soo celinaya insha allah, iyadoo nool, iyadoo dhaqdhaqaaqayso, iyadoo wacdiyeynayso, iyadoo wax kasta dhigayso maasha allah. marka waad sheekadiina la dhihi jiray, haddaa xasuusatiin, waqti baa imaanayo dajaal. waayo hadeertaan waxyaalo badan horta daliil waa aragnay, tanna dajaalkii baa yimid insha allahu tacaala. waxaan ku ogaaneynaa dajaalka waxa waaye codka qof dhintay la nooleynayo. hadda muusika ama heesaa la duubayaa, codka qof kala la saarayaa, yacni shaqadii shaqo barakama leey taagan tahay insha allahu tacaala. ilaahay ha naga koriyo waxyaalaha shaydaamanka, ilaahayow nasii caafimaad, ilaahayow quluubteena daayac, ilaahayow dad iimaankooda mar kastana isjecel ilaahay naga dhig insha allahu tacaala. saad u ogtihiin walaalahayga, waana iga tahay insha allahu tacaala, waa idin jeclahay ilaahay dartiisa. adduunka waa gabagaba insha allah. marka aan ku dadaalno sadaqooyinka, ilaahayow sadaqooyinka aan ku dadaalno, waxyaalaha badan uu ka qabanaya, waayo daaficu lbalaa. adkaarta hala badiyo, salaadaha hala badiyo insha allahu tacaala. maantana waa maalin jumcaha, waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo suuradooyinka suuratuljumca insha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. إن شاء الله تعالى وإنه جمعة دنب إن شاء الله هدان وضنولنهني أركت دنب أو حيصة له وأنا إذن سلامي.